السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان برشوية الصومالي ملك استاد جوكتان دنيا الدافة دعالة دنيا الدافية ملك استاد جوكتان هذا للبانكو مشرو يا واحد الله هاي سبسكرايب لايك شير كإيصال ولا أدا أذيك ما أنت داون يسد إيه شير كري لو ذاك صاحب هذا سي إلى النقدان صاحب أمبا داوضها يداوضه وانكاجا ما هاد علينا يا إله با ما هاد لكن ولا أذيك هدا يعاونني يعاونها qof ima caawinayso qof walba garab waxa u ah dadkiisa dadkan arkaysa caalamka iyo adduunyada ku faafay oo magaca iyo sumcadda iyo wax kasta leh oo dunida horumartay wax ka dhigo dadkooda idinka anaga ii joogtiin dadkaygo ilaahay oo Soomaaliya ii weynin walaal subscribe-ka like share-kaygu caawi waxa kale oo ka codsanaya haduu la yiraahdo waxa ra'yigeysid naftirkeeda aniga kama deernayo commentiga igu soo dhaaf fikirtaa ayaa hore waxa ay ka bal qaad inaan iga helaysiin ii sheeg WhatsApp aan idin kala soo xiriirayo balan waa soonka WhatsApp ugu sheekaysanayna haduu la yiraahdo oo ilaahay raali ka noqdo insha Allah waxa rabaa inaan barnaamijyo oo haduu la yiraahdo adii soo wada dabkay saariin editing-ka ku jiraan waxa kale oo marka idin ka bal qaaday WhatsApp-ka aniga dhaho waa idin sameynaya meeshaan wadankeena ma joogo horud inta tago aan dhawr buudo la faaraba ma joogto marka ila soco adiga ila fahmay iyo ayada iyo asaga ya marka waxa weey markaan aniga haduu Ilaahay yiraahdo waa idin soo jeestay waxaan jeclahay inaan ila wadaago aniga waxa igu taqaaneen wanaaga iyo walaaltinimada iyo jeclaysiga iyo dalkayga inaan jeclahay dadkayga jeclahay diinteeda kadaalika sidoo kale taan jeclahay ma sha Allah aniga ana wada jecel ahbo waayo عيال حمر عيال وبيع اسكناها ما فهمتي مركا واكاساه عيال بلحوم انا كريم يا اخي ورديق لا كريم يا اخي حمر وين كريم يا اخي هكريبن مدينه هكريبن ايش افر شنو تبون كتب هذا هكريبن يخشي حمر جب حمر جديد ورديق لي اصع لي ورديق لي جعل يا ولا لي ورديق لي يا ولا لي جوج ماشي تذكر على هاي بان ديرو libaaxa ka reebin war meeshan hadaa idinku ku soo tiriyo 17 degmo xamar amar yaa baradheysay laakiin liiga baramay haafa ka soo qaatay 17 degmo xamar waxa leeyahay waa idin jeclahay ciyaal xamaraanahay caasho ciyaal xamaraanahay ya waqtid ma naqaan ciyaal xamaraanahay hadaa waqtid naqaano ilaahay bana baran alxamdulillah shukr ba caalibin ma yaqaanaan maanta waxaan rabaa haduu Ilaahay raad inaan ila wadaago asxaabteeda horta inaan idin raali geliyo raali ahaada oo idintuuga idinku raali waxaan idin leeyahay walaal aniga waxa iga barteen mujaajiliste waxa iga barteen riwaayadaha sheeko gaaban waxa iga barteen wacyi gelin xoogaa sida caawo kaleeto waa idinka maqnaay waxa idinka maqnaay wax kale maaha bili aadan ma dhamo Ilaahay subhanahu wa ta'ala واحد يا الله أكبر إله يا وين إله هذا ما أنت أديك ولا شيء تهاي كامل دمي أديك أنا إجمع دمي دواي وحنا هاي ضد بالآدم الضم إلهي أنا هاي وأسكوبها هنا هاي قفك الصومالي جا أيا وحية هني جا إيش يرجع هذا صومالي أسرة هاي يقول يرجع أصحاب هذا هذا ولا شيء أكت هاي أدنى سيدا كله أقص لي أرج عمل شلي ويا إدي مجداني واسكي قصة اسكي كفتم بيا ويا أوجه هنا هذا قصتين اسكي قراحي سنيسين عاو حرب عبد الله يرادو إن أنا لو ذابو وحيرو أرينير وأصحاب إيسو قرين ضد أصحابه وجوه وطن كصوماليا قبل الصوماليا ومن كميدا وحويان مركز تاريخ بعد واي وعد waxa weeyaan dad wili gabar Soomaaliyeed waay ya waxa ku dhacday gabadha Soomaaliyeed oo walaasheen waxay samaysatay mustaqbal waxay samaysatay guri qurux badan waxay samaysatay jacayl macaan badan jacayl markii la dhaho dheelma jacaylka la afka Soomaaliga afka ay dadka qaar Soomaaliga faruuraha oo ka saaran yahay hadalka jacaylka la dhahay kelmadda jacaylka la dhahay جعل وامحي جعل كومنت يوسو قر هذا كودينا انت جانس يقولها
إلهي نوم الدرادة الحمد لله شكر رب العالمين هرت أسكت دعينه أو أنا كورونا كرين كان كر قاضو إلهي مالك عذر جري عذرك عسيس عسى وجله أنا كر قاضو تعسى إلى الله أن دعي سنة إلهي ندعاء نجا أقبله دعاء أقبلنا إلهي نجا مديجو كو جعمه كروه ورصده إلهي وحكوان إلهي نجا مديجو بابا كم ويمين إن شاء الله كويمين إلهي سبحانه وتعالى قفور الرحيم واي الدنيا حرنا قفل بدن وليه هاي أديك وحرت أنا صوب بحد أفريقيا إماتيد dad badan waxay rabaa intii ku xayriin inay wadamadooda aadaan ay ka imaadaan ay ka imideen dadna waxay rabaa inay imaadaan Afrika dadkoodii ehelkoodii ilmahoodii ay soo booqdaan ilaahay ha ka soorto inaan isku imaano soonka oo ilmahaada u timaadid oo ehelkaada u timaadid oo asxaabtaada u timaadid ma jecelido ayaa ilaahay aan wada toognaa marka hirinka dee la toogo ya waana kaalmeeha ma fahanteen xogaa marka أنت ميستري هنا إذا كنت تسوق أنت كلت أي فاهم يصير عيال حمرا ماشان يجيبوا حنا عيال صومالي وين يا صومالي ودم شنت صومالي أيا يجور تاني الحمد لله يا قبل هذا صومالي إنه يجور ما مر قبل هذا قاركود إنه يجور أنت بدن وشعلها قفك في صومالي وهالله وصومالي دبتة وحكى الله لا يا هرت دعاء أنت إلهي هنوفر فردي ورديها صباحا أنا أفتكر وحلا جاوا ما شاء جوتينا إمارو أو حتى عن علي جيت كان علي عذر كان جرد إنه أسكجرت إلى علي على جاوا يا الجليل كان أكر قاضو وساقف الرحين هي وعنان والس كرباشة أدونك وكستو إلهي أدون ماذا جرين إلهي نجمع ديبو أدون ماذا أنت كفريان عندنا دم بقلين وصون قن إلهي نجمع ديبو توبذين الكوة الأقبلة الله كده الكوة الأقبلة إلهي نجمع ديبو قفل بمراد ولا هي مراد كيس الله أسهل ذكر واحد اللي دعاء أنت دعاء مسكوف في عنا سما مسكوف في عنا دعاء كون تالي ساقرة يا بدعية خانا أواتنا قرر ممكن ذنك مرد إن شاء الله وأنا نقضي وأنا أواتا أبونا حتى وأنا نقضي أنا عرضي جيران دتكيك أنا عرضي سجنا أكتين قارة جوج هو أنت جوجان سومالي كو جيران الحمد لله والدقية إلهي ما هتصقناتي وحشجنا والدنبي هدا عف ما قبنا إلهيكم هذه ولا إلهي مركز توحو مدنيا هاي إلا عابدو أولو سجودو وفرحين واي كون كان إلهي ونجعليها هدون نجعلان عذر كان يريسكا ما أنت إلهي كان كابدنو إلهي أودا دول كان هيك دو ساسي بدا أنت ككينا كين دول كان أنت أو ككينا إلهي مصمين ونحرس بدين إلهي الحمد لله شكر رب العالمين إلهي أذاك وشكرنا لكن وآوي الدوامة كليتو وكل شكر لها إلهي سوهنوني علينا عذرك الدنيا كجرنا اللهنا وقرقاضو وحكى لما أنت إلهي إن الطوق ما هني وحكى لما أنت ميالا مركز تنوال الطوق الدون إلهي عنها أنتو إلهي سوهنونيين أو ما شاء الله عندها نام كود فرحنا إلهي هو سيادي كو قدر كان نقضي إلهي كمان يقول عذرك واحد فرت أنت سل إلهي كم هذين هنا وحد الله هاي هذا كبادنين ولا عليه واحد جرت جبرير وصومالي جعل أبورة تصاور هو شيء مستقبل سميستي قرر لستي قرر مكان لستي ما شاء الله خيركي ودحضي يخيركي أبى جبرتك أدقم لا أذهبه يجارك نواك أدقم لا أي هاي ويلك نوك أدقم لا أي هاي جبرني نواك أدقم لا أذهاي إذا كلا واتلك أنا بالوضد ير أو اللي يرأى أو إسربه isku daaya waa isku baahan yihiin waa nasraba ilaahay inuu isku baneeyay maxaa faraha ka dadka isqabaha ku mashquulin dadka isjecelaha ku mashquulin walaalaha ka dhex shaqeynin waayo birita adigu ma rabtin gurigaada laga dhex shaqeeyo maxaa guri islaameed marka loo duminaa marka ii sheega gabadhan wiilkan way isjeclaadeen khalaas ilaahay calaf isugu daray khalaas way ku sharaftay aabba wiilkaas asrabnaahay ku tiri si kana asrabnaahay ku tiri asagana wuu ku yiri gabadhaas asrabna aabe iidoon u doon Soomaali waa gayaankaaga walaalka waay qofka Soomaaliga ah oo shahaadanayo wiliba qof kasta Soomaaliya hadda maanta adduunka aa kala galnay iska daa Soomaali waxay tawalis og yaada ma fahanti marka Soomaali weyn aniga aaminsanahay wax la dhaho dadka la dhaho oo dadkayga ummadeeda Soomaali weyn marka dadkan qofka Soomaaliga ah oo shahaadanayo oo walaalka ah oo gibilka ah أقول أنا واحد ما أنت متقنا يوم تقنا وقت داوت تاجر إيتها أنا ساسا كوج جعلها أنت إتقنا وإتقنا أنت كسين
waaba kasii jeclahaw ma fahanteen marka waxaa rabaa walaalayaal marka guriga muslim mar hadduu dhisan yahay aragtay inaad dumiso maaha inaad u diidid maaha gabadhan reer hebel waaye isoo ma gasho ceeb caleeg 30 sano reer hebel ku jirna hadduu qiimo iyo sharaf iyo karaamo oo iyo garaadooyin oo noo suraayo ilaa hadda naga dhex taagan tahay dunida markay la dagaalayso cudurrada ilaahayna adduumaadka muslimiintana ay ilaahu marna kor qaad ay leeyihiin wadamada carabta iyo wadda Soomaaliya oo dhan Soomaalidina maxay sameynaysaa marka maxay sameynaysaa waa la is ogyahay waxay sameynaysaa dadkii gubayaan reer hebel waa baw waa la is gubayaa waa la is qalooyaa tartiib hubka dhiga waxaan wax yar ilaahay soo diray adduunka saa u kala xiray adiga ka warna qof bil aadan adoon ilaahay abuur oo salaada tukanaya hadii la tactaa laga yaabay inaa salaada dukatidna laga yaabo oo ilaahay inuu jiro ogtahay maskaxdaada awoowayaasha ay yihiin ahuldiin oo haddana ka warna ilaahay amarkiisa aad diidaysid iyo wuxuu ilaahay soo dejiyay aad diidaysid aakhire adduun wax ka xun ma leh qofkaas horta qofka gaalka ah karoon oo maanta doo ashhadu laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah sallallahu alayhi wasallam oo soo dhaho maanta uu ka fiican yahay wuxuu kaaga fiican yahay wax badan uu kaaga fiican yahay hadda xala dhalay waa asada laakiin adiga maanta daa tiraadi muslina ah ilaahay wuxuu rabo sameeyay diintana waa aqaana naanta meesha lagu cadaabay ilaahay ma joojiyo marka waxaa rabaa aslax beenaas la rabaa waxaa la rabaa inaad aad gabadhan iyo wiilkan istoorta faraha ka qaadid gabadhi sidii waxaa la yiri gabadhan ma soo gasho anagoo reer hebel ah anagoo laan dheere ah anagoo isjecel anagoo saan qaqa adi afaaraanteerni Soomaaliya ka jira waa taqaaniino walaalo bariya nasab jannada ku jira baan idin sheegi maayo maanta aniga nasab ahay ma ihi ma dhihi kariyo waayo qofka nasabka ah jannada qofka gala waayo jannada naar waxa galayaan ilaahay haday been tahay kelmadaas aan ku dhahayo walaal commentiga igu soo qor adiga ma ogtahay inaad nasab tahay oo nasab dhala tahay oo jannada aad galaysid ma ogid أنا سبكاسة أخانا قبيلنا وحكا أخانا سومالي وين عيال حمر يا عيال هرقيسو عيال جيجيجو عيال عيردير عيال حرديرة وحاسة أخانا عيال قرعين عيال إيشاق عيال جيجيجو عيال سومالي وين عيال هرقيسو يا عيال كسمايا كتجين يا عيال قبل الصومالية شنت قارد صومالية شنت صومالية راس كمبوني راس عسر ولا ردا كنوشة وحتى عيال صومالي waxa kale to imaado waa qalad qabiilka hal isku aqoonsada leer laakiin hal isku dilo lama dhihin hal isku aqoonsada qabiil iyo qabyaalada xun qabyaalada qaranka dumisa qaaradaha qaraabada kala geysa dadka walaalo Soomaali is jecel kala geysa laakiin qabiilka la taariif la samaa laakiin inaa ku dhaqantid shariicada islaamka ma qabto inaa ku dhaqantid oo tiraadni iga fogay kan ma aha dadkeygii qaale adiga tahay ma ku jiri ani adiga ku jirtid ilaaha ku fududay alaana ka soo madoobay inta qabiil raacsan waxa leeyahay gabadhii wiilkii adii wada sheekadiisa inta qabiilka oo ku jirtan ilaahay ka saaro oo kisto qabiilka iyo oo qaranka inuu dhismo iyo Soomaaliya isku timaado iyo dariskana waxa rabaa maanta ag joogo inaan dariskayga la mid noqdo oo la noolaado birta anigana aan soo shaqo tago ayagana ay soo shaqo tagana rabaa dariska laakiin dariskana diinteena waxay dhigaa in nabad geliyo gaal iyo muslim ilaaha abuura iska nabad geliyaade ani adoon ilaahay waa cadaab iyo su'aal iyo dib iyo adi ilaah xisaabina adna ilaah ku xisaabay laba adoonatiin marka waxa uu si dib raacdaa qalada lakum diinukum wali diin ilaaha dhah ana ma dhihin marka gabadhaas miskiinta oo gurigeeda dhisatay oo reeraha la dheerayaasha oo haan wiilkii cidi isku diiday gurigeeda dhistaan guri markay dhistaan waxaa la yiri waa ka saayday ma idinka idin taalaaleeyay gabadhi way baxday waxay taray shariicada islaamka maxay ka qabtaa wiila aabay u geystay wiilaasaan isku noqonay qabiil ahaan loo diiday shariicada islaamka maxay ka qadan lahayd hadii lagu sharfa aabo gurigaada la imaaday gabadhaada la rabaa gogol lagu soo fariistay
sida gunti ina u hadashid maaha waa sida gobta ina u hadashid bili aadnimada u hadashid soomaalinimada u hadashid ada shal gabadhaad adin guursanaysid moogta gabadhahan maanta kuraaya anu ku guursamayno ma fahamtid marka waxaa laga rabaa inaad markii lagu sharfo guri lagu imaado hadduu yahay jilac hadduu yahay jariir waa simanahay halana anaga dadka meelaha kasoo qaylinaya dhahay reer hebel ahay saana ahay qulaa ahay qabiil jannana geemaya ilaahay laga cabsado tartiib dhulka hubka hala dhigo iyo hadallada dheer oo waxba baraamaanaya caliga ah umada sii kala fogeeyo walaalaha iska sii kala fogeeyo oo waxba waxay allaala waxay tirayaan aan jirin marka gabadha Soomaaliyeed iyo wiilka Soomaaliyeed waxay dhaheen meelaha iska dignaba shariica islaamka waxay tiri adeer haa sheeqo saana jirto saa ma jirta haa oo saas ma jirta haa aabeeda sheeqo wacay wuxuu yiri hay saas ma jirta haa gabadha maxaa ku diiday hal hebel ku diiday war sheeqan sheeq hebel ah sheeq hebel ma tahay haa ee gabadha saas ku diiday gabadha reer hebel ma geeyaan aniga reer hebel ah isma geeyno wiilkayga waa reer hebel jacayl reer hebel ma kasaa abadan inuu ka seen jacayl reer hebel iyo calaf minuu ku soo doono wallahi ma kasaysid cunugi adiga dhalaysid ma ogid ninka dhalaayo laakiin ma jeclaysan meelaha qaar wax ka soo yeeraya waxaa la yiri sheeqiyo wiilki sheeq caan waaye oo la weydiiyay waxay dhahday tira baayo saasa la dhahay marka sheeq wuxuu yiri fasaxata diinta ku fasaxday aabaha guriga ku jiro qolka ku jiro qof kale ta ku meersan kartaa maadaama uu aabaha sharci islaamka ka tilaabsaday sharaf daramada gabadhaada intay ka tagtay meel kale iska aaday adiga ay ku sharaftay adiga reer hebel u diidid saasti taaygo hadana ma loo dhaafinbo waa dileynaa baba adduunyan la raadsado gabadha waa dileynaa gabadha ka waa ka siinayna banaankaas iska degtaa maxaa kartaa iska dhaaf guri carish meelahaas iska degtaa hawdkaas iska degantaa miskiin waay waxa ma haysato way iska dhiban tahay waa uura leedahay hadda stress adduunyan haysato marka maxaa kula talinaadeen gabadhaas miskiinta cidaad aad ma dhahe baahida ninkan ka tag mase waxaa dhahaysaa iska sabir ilaahay wax ku siinaayo wallahi way miskiin waaye waa gabar yar mustaqbal leh oo idinka dhalinyarada hadda dhaxdhaxaadka iska waay marka fahanteen marka waxaa la rabaa insha Allah inaad ra'yigaada soo dhiibatid inay ka tagto ninka baahay uga tagto iyo qabiilkiisa iyo inay la joogto oo ilaahay u barakeeyo wallahi waxaan dhaanay waa la taliyo horta aad oo la taliyay ana waxaan dhahay ala kulli xaal istaqad ilaahayo saasa jirto isaan ilaahay wax walba uu awoodaa shalay ku qoray inaad guursatid ilaahay maanta inaan ku qorayo inaad guursatid ilaahay wallahi dhar dhaqdahay dhar caadi dhaqoosa xaafadaha ku wareegay way dhaqoosa dharka eedo uur leh asagana wuxuu helo ma qadinaya waayo waa ogtihiin baladkeena shaqo kama jirto maanta mooto qaadanaya wiilka Soomaaliga ah meeliso wareegaya hadduu wax soo helo hadduu soo waayo waa kaasa mootada marka qaraxda jidka waxaa leeyahay balaaya tahay dhibaato ka jirto dhalinyarada way dhiban yihiin xagga qabiilka ku dhiban yihiin xagga jidadka ku dhiban yihiin xagga waxay ku dhiban yihiin ishaag meel kasta ay ku roon yihiin ciyaalka dhalinyarada Soomaaliyeed oo qor qaadin oo qabiilkan shaqo ku lahayn ma jirto meel ay ku dhibaneen gabadhaas aniga horta maxaa kula talin lahaydeen maxaa sadhiin lahaydeen inay baahida iyo ay ka tagtaa mase inay ay la joogto oo ilaahay ku aqoonsato waayo haddaba ma qadamahano hadda dhaqowaysa xataa ilaahay iska qabta dadkana way iska warbadan yihiin biyo ana waxaa dhahay biyo kulaysaa dhahay jid dabka intaa shidid aan dhahay dhacol markaas sayid biyo kulayl dabka baasta karsan wayaan dhahay biyo saaran dabka irida horteeda dhigo diris oo kulma degnaha diriskaada xataa calooshaada tusina dhaana waa la waani idinkana waana idinka rabtaa waa walaashiin heel iyo xataa waxa u galaysiin diyaaraan yeelanahay ya marka Soomaalida aad isku caawisaa aad isku aqal celisaa marka waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh naga daaya qabiil wana daashaday qabiil qiimo ma leh qabri mooyee qiimo kale u leeyahay ma leh qabiil marka sheeko kalena waa idin haya insha Allah qiso kale oo la soo dhiibay haddana waxaa leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh